khubarada iyo siyaasiyiinta dalka Mareykanka ayaa ogaaday mid ka mid ah gantaalaha loo isticmaalay lagu burburiyo maraakiibta dalka Mareykanka lagu hagaajiyay dalka Shiinaha iyadoo sidoo kale ay soo tarayaan wararka ku saabsan in dawladaha Shiinaha iyo Ruushku ay si dhab dagaalka u soo galeen xilli ay dawladda dalka Mareykanka madaxweyne Donald Trump ay ku sii adkaanayso in siyaasadda dagaalkan iyo qaabka uu u socdo laga iibiyo gudaha dalka Mareykanka iyo xataa tuweynta talada Washington go'aamisa ee aqalka Senate iyo Congress-ka kusoo dhawaada barnaamijkeena warwareynad ku maqli doon xogii ugu dambeeyay dhinaca dagaalada iyo xuraanka dhinaca siyaasadda ee sii darsanaysa dagaalada aadka u baahan ee ka sii socda gudaha waddankaasi Iran iyo sidoo kale guud ahaan wadamada caalamka Carabta iyo Israa'iil ayaa marba ka dambaysa sii adkaanaya xaaladana waxay u egtahay inay sii qaraaraanayso dalalka reer Yurub ayaa wali sutida u hayeen madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump isagu gabadhacaleeyay dhowr jeerna marna wax dalbaday marna iska diiday inay ku yeeraan in xabadda la joojiyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa iska dhigayay in dalka Mareykanka uusan ninaba u baahnayn barbirowga dagaalka wuxuuna dhowr jeer ku tilmaamay dalka Mareykanka inuu yahay awood cid walba muqooni doonta sida laajigeedna cid ay u baahan tahay aysan jirin waa idii baahannahay sida daraadeedna nagu soo biira waa hadalkiisii ugu dambeeyay idima baahnin waan isku filannahay wadan ballaaran baan nahay waan la yaabanayo cidda leh Mareykan baa cid u baahan doonana waa hadaladii ka horreeyay waa idii baahannahay idima baahnin mar walba waa hadalada laga maqlayay madaxweynaha dalka Mareykanka dadka qaarkood ayaana ku tilmaamay in gabi ahaanba ay jidka ay ka luntay siyaasadeed iyo dhabaha haynta adkaysiga waxyaalaha muhiimka u ah dalka Mareykanka waxa uu ku tilmaamay inuusan ku yaabaynin in dalalkaasi ay diideen waxaase uu mar kale haddana uu sheegay inuu haddana ku yaabay in ay gabi ahaanba diideen mar kale ayuu wuxuu yiri uma baahnin mar kalena wuxuu dhahay soo dira maraakiib dagaal oo ka howlgala ayuu yiri gacmada istiraatiijiga ururka the European Council ayaa waxa ayagana ay ku yeedheen in sida ugu rasaha badan loo joojiyo weerarada dhinaca dhaqaalaha ayagoo sheegay in ay dunidu ay qarka u saaran tahay in tallaabooyin aad u qaraar ay dhacaan dhanka kalena madaxweynaha wadanka Iran Mas'ud Pezeshkian ayaa sheegay in weerarada dalka Mareykanka iyo markaasi mas'uuliyiinta kale ee wataan ee ka dhanka ahaa hogaamiyaashii wadanka oo lagu qaarajiyay hogaamiyihii ugu sarreeyay wadanka iyo xubno kale wada muhiim ah ay burburiyeen sharcigii iyo kala damayntii caalamka sida daraadeedna dunida oo dhan ay ahayd inay arrintan hal meel uga soo jeesato isla markaana in qofna uusan ammaan ka noqon doonin mustaqbalka in ay gacanta qof kale uu ku baxo wadamada dalalka Turkiga iyo Qatarna waxay kamid ahaayeen kuwii ugu dambeeyay iyaguna shir degdeg isugu yimaada wasiirada amuraha dibadda ee labadaasi dal Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Thani oo ahna ra'iisul wasaaraha iyo waliba dhigiisa dalka Turkiga Hakan Fidan ayaa magaalada Doha ee xarunta dalka Qatar kulan ay ku yeesheen waxay kaga wada hadleen ahamiyadda ay leedahay muhiimadda khaaska ah ee qadiyada la xidhiidha sidii loo markaas xakameyn lahaa dagaalka booqashadan ayaa timid ayaa leeyahay xilli aan xaaladda gobolka uu ku jiray ay tahay mid aan la qiyaasi karaynin isla markaana sii socoshada weerarada Iran ee ka dhanka wadamada dariska ah ay yihiin kuwo sii adkaanaya ayaa laga sii xigtay isagoo uu leeyahay Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Thani oo ah ra'iisul wasaaraha wadankaasi ahna wasiirka wasaaradda amuraha dibadda uu dhinaca taagna Hakan Fidan waxaana uu sheegay in ay gabi ahaanba arrimahan oo dhan ay muujinayso nasiib darro iyo waliba mas'uuliyad darro siyaasadeed oo ay sii wado kicin halis ah Iran ayuu sheegay laakiin dhinacyada ayaa gabi ahaanba waxa ay diideen dhankooda inay cambaareeyaan mar kale Israa'iil arrintan ayaana muujinaysa sida wadamada caalamka islaamka ay uga wareertay xaaladuna ay marba ka dambaysa uga sii qayoonayso ayadoo dadka qaarkood ay ku tilmaameen inay saacadihii ugu dambeeyay u jahawareer aad u xoogan u ku jiray dhinaca hoggaanka dunida Carabta gaar ahaan kuwa markaasi khaliijka oo ayagu marba gidaar qabsanaya marka xataa lagu daro dalkii ugu deganaa ee Saudi Arabia oo ayagu maalmihii ugu dambeeyay oo dhan si weyn uga gaabsanay Sacuudiga wararkiisa uu soo noqon doonaayo wararka ugu dambeeyay ayaa soo baxaya in xanuunka dagaalka hadeerta laga dareemay Washington la isweydiiyay qalabka la isticmaalo warbixinii ugu horeeyay oo hordhaca ayaa cadeynaya in dawladda dalka Shiinaha ay qayb weyn ka tahay qaar kamid ah gantaalihii loo isticmaalay ayaa maraakiibta dagaalka ee dalka Mareykanka kuwaas oo ku khasbay maraakiibtii Mareykanka in ay ka soo baxaan jiida isla markaana ay ku soo noqdaan meelo ammaan wararka ayaa xaqiijinaya in qaar kamid ah siyaasiyiinta waaweyn dalka Mareykanka iyo khibrada militarigu ay sheegeen in dagaalku hadeerta uu u eg yahay mid waji kala yeeshay halista dagaalku inuu sii ballaadhnaado isla markaana uu door kala yeesho dunida oo dhan oo ku fido waa mid marba ka dambaysa qarka loo sii saaran yahay kadib markii uu sheegay Gordon Chanchin oo ka tirsan macadka loo yaqaano ama ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna soo biiray Fox News
ayuu wuxuu u sheegay in gebi ahaanba ay socoto tallaabooyin aada u xoogan oo dowladda dalka shiinuhu ay ku taageerayso hanaanka sii socoshada leh ee weerarada istaraatiijiga ay qaadayso ciidamada ilaalada kacaanka ee wadanka Iran, kuwaasoo maalmihii ugu dambeeyey mar walba u kala bedelayay hubka iyo rasaasta ay ku gabayaan maraakiibta. gaar ahaan maraakiibta dalka Mareykanka ayaa la sheegay in lagu qasbay inay gobolka ka tagaan. taasina waxaa la sheegay inay ka dhalatay iyagoo qaarkood dhitinaya inay gobolka isaga baxaan in ay weeraro toos ah oo ka yimid agab casri ah oo dowladda dalka shiinuhu ay bixiso. markii ugu horeysay ayaa la sheegay inay caddaatay in gantaal nooca hypersonic ah lagu riday markabka loo yaqaano Abraham Lincoln, kaasoo xambaarsanaa markaasi diyaaradaha dagaalka inuu ahaa mid Chinesku leeyahay, taasoo cadaysay in dowladda dalka Iran ay hadeerto isticmaalayso ayaa leeyahay gantaalo Chinesku uu sameeyey. sidaasi waxaa qaba markaasi qadadhigaha arrimahan Gordon Chang oo ku sheegay in ay marakan dagaalku uu macno weyn oo u yeeshay gantaalaha iyo hubka casriga ah ee dowladda dalka Iran ay ka heshay Shiinaha ayaa dhinaca kalena waxaa la sheegay in gebi ahaanba ay si dadban iyo si toosaba ay ugu lug leeyihiin sidii Iran ay u difaaci lahayd dhulkeeda iyo sidoo kale inay badaba ay ka erido Mareykanka. dowladda Mareykanka iyo madaxweyne Donald Trump ayaa ka dagaalamay isla markaana warbaahinta qaarkood weeraro ba'an ku qaaday kadib markii ay warbaahintaasi ay si weyn ay u sheegeen in ay waxyeello waaweyn ay gaadhay qaar ka mid ah maraakiibta dalka Mareykanka, ayagoo sheegay in markabkii USS Abraham Lincoln ay gaadhay dhibaato aada u xoogan, diyaaradona ay wax ku noqdeen, sidoo kale shacab qaar ka militariga ay wax ku noqdeen. dowladda Mareykanka ayaa ku hanjabtay in ay gebi ahaanba warbaahinta arrintaasi soo saartay ee kala noqon doonto xataa waxa ay ugu yeedheen markaasi liiska ayay yiraahdeen markaasi laysanka ama shatiga shaqo ee warbaahineed si aysan gudaha Mareykanka aysan uga howlgelin. laakiinse dowladda Mareykanka ayaa diiday inay cadeyn u keento wax burinaya hadalkaasi. ugu dambeyntiina dowladda Mareykanka ayaa si dadban u qiratay in markabkeedii weynaa US Gerald Ford uu ka soo baxay jiida dagaalka shalay toddobaadkan kadib markii ay soo gaadhay dhibaato dhinaca dabka oo ay sheegeen in aysan haba yaraatee isan ka dhalan weerar lagu soo qaaday ama uu ahaa non-combat fire, kaasoo ay sheegeen inuu dab ka dhashay ahaa mid weerar aan ahayn. haddaba sida muuqata gantaalaha noocan oo kale ah waxa ay keeni doonaan xaaladdu inay isbedesho ayuu change dagaalka oo dhanna waxa uu gebi ahaanba u muuqdaa in uu hal habeen isku bedeli karo una noqon karo dagaal xitaa u dhaxeeya Shiinaha iyo Mareykanka ayuu ka digi, isagoo yiri ilaahay sidaa kama dhige waxaan u arkaa ayuu yiri arrintani mid marba marka dambaysa muujinaysa halis, maadaama maraakiibta dalka Mareykanka ay ku dhacayaan gantaalaha Shiinuhu usubiyay habeen kaliya inuu dagaalku isku bedelo mid u dhaxeeya Shiinaha iyo Mareykanka waxba ma aha ayuu yiri. laakiin sidaas ilaahay kama dhigo. Shiinahaas taageeradiisa Iran gebi ahaanba waa mid aada u xoogan, waxaana u muuqataa wax kasta ayuu yiri oo aysan ku jirin ciidamo kaliya u dagaalamaya. Shiinuhuna gebi ahaanba waxay arrintan u arkaan ayuu yiri inay cadowgoodii ay ku heleen chance, taasoo ay rabaan inay ku buquujiyaan meel ka fog xuduudda dalka Shiinaha, kaasoo Mareykanka ah inuu god ugu dhacay ay yiraahdeen maadaama uu dalka Iran la dagaalamay. Iran dagaalkeedana wuxuu noqon doonaa mid macno weyn leh. saacadihii ugu dambeeyay ayaa la warinayay tallaabooyin waaweyn oo dalalka Shiinaha iyo Ruushka ay qaadayaan, ayadoo la sheegay in ay shaqada kala qaybsadeen. dowladda Ruushka andhaho ayaa warwareyn xogsiin iyo sidoo kale xuraamista goobaha ay ciidamada Mareykanku marba u baxsadaan ama ay dib ugu gurtaan ama ay ka soo dagaalamaan u qaaday, halka la sheegay in xukuumadda wadankaasi Shiinuhuna ay tiri agabka dhinaca tiknoolajiyadda iyo hagitaanka gaarsiinta qaar ka mid ah ay yiraahdeen agabyada waaweyn ay u baahan yihiin waqti xaadirkan, gantaalo iyo sidoo kale ridayaal cabiran iyo GPS hogaaminaya ama jiheeyaal ayaan ku caawinanaa Iran ayaana u muuqata in dagaalkeeda uusan hadeerto fari ka qodnayn.